baga mudanahay muddo dheer baan soo ahay kirada hadda kaliya ka saar hadii aan hadeer kirada waa ku jira oo kirooyin badan baa lagu leeyahay waxyaalaha xarjka igu dhalinayo ugu badan dadkan kala hadlay halkan waa diin tira badan oo soo yaalo noloshada la socoto oo magaalo qarad barkeed aan mari karin oo barkeed ay kiro iyo maxaa ka mid ah xusi kara walaalaha hadda istaa kirooyin badan aan ku soo aniga hal kira kuma jiro aniga dhowr muddo 20 sano ku dhow baan joogaa magaalada aw la rimiyay baan markay hore qof magaalo joogto ma ahayn qof dadkii miyiga ka yimid baan ahaano waxna ma barandee qof wax barasho loo haday wax ku shaqaysanaya ama cilmi kale xirfad kale ma ahayn maxay tahay adu caawinaad ehelka Soomaaliyeed waxay gaar ku tahay in qofka tabaraysan iska caawinaad dabaadee iyadu iska cirqa marka baahidaas duruufta dheer muddada ku soo jiray oo diinta leh oo ilmihii oo iga baaba'san leh oo hoylaanta leh oo hadana ciidan u maqnayn waxa jira mar aad wax sugto ilaahay horta la taqnadu min rahmatillah way ilaahay kama qosanayno laakiin oo hadeer ba ilaahay baa subhanahu wa ta'ala halkan uu dartiisii walaalahay ugu caawiyaan waxaan ugu duceynayaa ilaahay qof walba meesha uu ka tabanayo inuu ka tiiriyo adduun iyo aakhiraba adduunkan ilaahay inuu siiyo cafis iyo caafimaad iyo cimri dheer iyo wada suban aakhirana ilaahay naxariistiisa waasaca uu galiyo adduumada khaaska uu naxariisan ilaahay uu ku daro qofkii ilmo ka xanuunsan qof walba ilaahay baa yaqaan meesha uu ka xanuunsan aan walaalahay haday isoo booqdaan oo wixii soo diraan duco waxaan ahayd awoodo wanaag waxaan iyo ducaahayna igu male mana ilaawo doon insha Allah waxaan ka bariyaa oo ka codsanaya walaalaha daawan doono klibkaygan ama barnaamijkaygan daawan doona inay gudbiyaan oo walaalba walaalka kale gudbiyo waxaan ka codsanay in soo duceeyo ilaahay inuu iga saaro xarjka iyo culayska wasaas duruuftu ka soo dhan waa kirada oo kirooyin lagu leeyahay deymo hore oo hadda ilaahay ilmaha dhurtan jirka ku siman lagu leeyahay aniga maadaama qof raqdooda ahay deyman badan meelo badan baan madaxa la galgalay marka nafta uu yaabo marde waqtigu waa soo taraya moogta qofkiina noloshu waa iska rabaa markasta uu baahan yahay xudsi ugu dameeyo walaalahay inay qalbigana iga soo duceeyaan gacantana wax iga soo diraan baan ka codsanayaa ilaahayna ka baryayaa walaalahayna ilaahay inuu qalbigooda naxariis geliyo walaalna naxariis badan baan ka dhashay lambarkaaga meesha wax ku ugu qorayna afkan hada ka sheegto saalka waxa weeye furashan 49 81 18